Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawow kanaalka Afawrsame. Maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago haddana sheeko yar. Sheekadu waa sida tan. Nin ayaa wuxuu kasoo guuray magaalo, wuxuu imaanayay magaalo kale. Kadib wuxuu ku fikiray magaaladan dadka jooga sideeyin dad wanaagsanaa, waxaas ku fikir. Wuxuu u imaaday nin magaalada kii ka ahaa madaxka. Markaas wuxuu yiri dadka magaaladan jooga waa sidee, may jeclaa doonaan, may heli doonaan, may soo dhaweey doonaan. Kadib ninka wuxuu yiri magaalada ka timaaday sidee ahayd dadka jooga sidee ahaayeen. Wuxuu yiri dad waxay ahaayeen tuugo badan, dad waxay ahaayeen wada dhoonayaal, dad waxay ahaayeen dadka dhaca, dad xaasidiina, dad ayaga dhan aan wanaagsanayn ahaayeen. Ninkii marka magaalada madaxda ka ahaa wuxuu yiri dadka inta joogana waa kuwaas oo kale, waxba farqi uma dhaxeeyo. Ninkii uu yaabo iska tagay. Kadib nin kale oo cusub haddana magaalada imaanaya. Wuxuu u imaaday isla ninkii magaalada madaxda ka ahaa. Wuxuu yiri adeer magaalada dadka jooga waa sidee, may jeclaa doonaan, may soo dhaweey doonaan, waa dad noocay. Wuxuu yiri marka odaygii magaalada madaxda ka ahaa dadka magaalada ka imaata jooga sidee bay ahaayeen. Ninkii wuxuu yiri dadka magaalada jooga waxay dad wanaagsan, dad iscaawiya, dad walaalo isku ah, dad yacni is ixtiraama, dad qofba qofka kala kaaba ay ahayd. Markaas ayuu wuxuu yiri ninkii magaalada madaxda ka ahaa dadka magaaladan joogana waa sida dadkaas oo kale. Marka waxa laga yaabaa inaad ku fikiraysid ninkan meesha xaakinka ka ah labada nin jawaabaha uu kala siiyay xayta aad ku fikiraysaa. Marka taas macnaha waxa ay la micno tahay mar walba sida adigu aad tahay ayaa waxa u malaynaysaa dadku inay yihiin. Hadad adigu tahay qof qiyaamo badan, qof dadka dhaca, qof laqdaba badan hadaa tahay waxaad mooday adduunka dhan dadka jooga ama magaalada aad joogto dadka jooga oo dhan inay yihiin dad noocaas ah. Hadad aragto qof dhahaya magaaladan dadka jooga dad fiican ma qiyaamada ku soo badatay, hebelowga ku soo batay, yacni adiga asaas ah. Qofka bilaadanka wuxuu mar walba soo jiitaa waxa uu yahay. Adiga mar walba waxaad dad wanaagsan tahay dadka caawisid, dadka qof walba aad walaalo tahay qofka dadka aad ixtiraamto waxaad soo jiidinaysaa dadka noocaaga ah. Hadaa tahay qof qiyaamo badan oo madaxiisa wax daran ka guuxayaan waxaad soo jiidanaysaa dadka noocaas ah. Marka mar walba waxa aad tahay ayaad soo jiidanaysaa. Isku day adduunka inaad ogyaalo ma aragto nadiif aad ku fiirso. Isku day in adduunka yacni qalbi qurxan aad kula noolaato. Isku day adduunka inaad jacaylkaaga siiso. Inaad ma aragto adduunka qaybtaada falxumada ah aad ka qariso. Intaas isku day. Waa ku mahadsantahay daashada muuqaalkan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.